السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركل السود واضح أدي هذا ومهسنتين مانت وسبتي وأنا أفري طبعاً بشا لحد جون سنة كلابا كون يشان يلباتنك مقال كان وحرب إن ندخل وذاقو لبح اللبان أو كترسان برلمان كقبل كمينيسوتا جارهان أقل كوكيل ذي أقل كسنة ك هي لما نياشو دي أو ساك أرورتي لغو توكتي جريه أو كوكلا يلا تشامبلين يا بروكلين أو كترسان gobolka Minnesota booliska oo ilaa hadda aan soo qabanin qofkii toogashadaasi geystay laakiin magaciisi ayaa la shaaciyay ninkan sidee ugu suura gashay in labadaasi qof oo mas'uul ah intuu gurigooda ugu tago uu ku toogto ayaan rabaa bal arrimahaas inaan idinku la wadaago iyo cambaareynta ilaa hadda arrintaasi loo soo jeedinayo balse marka hore soo dhawaada cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina looga halweyn karo xilliyada salaada labo gaaridaad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex barida qaabka loo guto acmaasha cumrada afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ma awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber sagaal lix shan afar shan sagaal labo sideed afar toddoba shan mahadsanidin wali ma jeceshahay ilmahaaga yar ma doonaysaa inuu if iyo aakhiraba ku anfaco ma doonaysaa inaad sababtiisa janno ku gasho haddaba haddii aad doonaysa macallin hab online ku soo gaadhsiiya meel kastoo dunida ka nooshahay iyo saacad kastoo ay ku tahayba waxaan ku hayaa dugsiga xaafidul qur'aan online kuwaasoo adiga iyo ilmaha yarba ku barbaarinaya muddo aad u kooban ku baraya barashada xifdinta quraanka kariimka barashada higaada afka carabiga iyo waliba barashada asaasiga shariicada islaamka oo ugu weyn yahay tafsiirka quraanka kariimka wixii faahfaahin waxaad haatan ka wacaysaa telefoonka shaashada kaaga muuqda bilanteenu waa dugsiga xaafidul qur'aan online laba xildhibaan oo ka kala tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa aqalka sanadka ee aqalka wakiilada ayaa saaka aroortii inta guryahooda loogu tagay ayaa iyaga iyo lamaanayaashoodiiba lagu toogtay arrintan waxaa lagu tilmaamay weerar bartilmaameed ah ama weerar siyaasadeed dil qorsheysan oo siyaasadeed marka sidee wax u dhaceen bal aan idin la wadaago saaka aroortii waxaa la leeyahay labadii habeenimo ama 8 saac habeenimo ayaa waxaa booliska laga soo wacay guriga senatarka uu deganaa senatarka la yiraahdo John Hoffman iyo xaaskiisa Yvette oo ku yaala Champlain Minnesota waxaana la leeyahay markii boolisku halkaasi ay tageen iyadoo la toogtay ay arkeen laakiin ay daawac yihiin isbitaalka ayaa loola cararay qalliin ayaa lagu sameeyay markii boolisku marka halkaasi ay tageen waana badbaadeen booliska Brooklyn Park ayaa caawinayay marka sargaal ka tirsan ciidamada markii uu meesha tagay ayaa wuxuu yiri warbalukaadiya waxaan garanayaa mas'uul kale oo meeshan meel aan ka fogeyn degan waana xildhibaanada la yiraahdo Melissa Horman 5 ilaa 6 maal ay isku jiraan waxaana kala qaybisa wadada 610 ayaa kala qaybisa marka iyaduna Brooklyn Park ayay ku nooleed 9 saac iyo 35 daqiiqo markii booliska ay tageen xildhibaanada Melissa Horman iyo saygeeda ma guriga ay ku leeyihiin Brooklyn Park waxay ugu tageen gaari nooca booliska oo nalalkii booliska ay ka shidan yihiin oo driveway-ga ku baakiman guriga hortiisa markaas kadibna waxay arkeen nin isaguna guriga hortiisa taagan sidaas darteed booliska iyo ninkii waa israasaasayeen irida dambe ee guriga ayuuna ka baxay waxaba loo maleynayaa marka ka hor miyuu dilay xildhibaanad Melissa iyo saygeeda Mark mase markii uu guriga sii dhaxmarayay ayuu toogtay sababta marka mas'uuliyiintan ay guriga uga fureen ayaa laga yaabaa inaad la yaabto maxaa yeelay ninkan waxa la leeyahay gaari boolis oo nalalkii boolis kale ayuu watay dharkii booliska ayuu watay baajkii ayuu watay bustoolad ayuu watay taser ayuu watay marka waana nin cadaan ah marka qofku waxa uu isleeyahay xilligan oo aroor ah qofka booliska ee guriga ku soo garaacay kulay waxba jira dadkana waa mas'uuliyiin baarlamaanka ayay ku jiraan marka sidaas inay albaabka uga fureen ayaa loo maleynayaa markaas kadibna uu sidaasi ku toogtay marka xildhibaanad Melissa Horman iyo saygeeda Mark ma aysan badbaadin oo halkaasi ayay ku geeriyoodeen xildhibaanadan waxa ay ku jirtay markeedii 11aad ayaa loo soo doortay aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota waxaana laga soo dooranayay 34B ama 34B ilaa sanadkii 2004 ayay ahayd markii u horeysay oo la soo doortay mar waxay noqotay
gudoomiyaha aqlabiyadda aqalka wakiilada 2017 ilaa 2019 afhayeenka aqalka ayayna noqotay 2019 iyo 2025 oo hadda galfadhigii baarlamaanka ee talaadadii soo xirmay markii uu furmayay waa tii 3 toddobaad ay diideen xubnaha dimuqraadiyiintu inay imaadaan maadaama in aqlabiyad aysan jirin oo labada baarlamaanka ama aqalka wakiilada aqlabiyadiisu ay sinayd sidaasi marka waxay ahayd xildhibaanad ruugcada ah oo soo hogaamisay xisbiga dimuqraadiga labadan xubnoodna ogaada dhammaantoodba dimuqraadi ayay ahaayeen sidaas darteed boolisku marka ninkii waa uu ka cararay waa ay ceyrsadeen laakiin waa uu ka fakaday marka mar ay ahayd 11 saac iyo 30 daqiiqo oo subaxnimo ayaa boolisku dadka degan golf course-ga la yiraahdo Edinburgh ilaa iyo 3 mayl waxay ugu baaqeen dadku in ay guryahooda xirtaan albaabada daaqadahana ay xirtaan haddii qof albaabka u soo garaacay aysan ka furin oo booliska 911 ay soo wacaan ilaa 2 boolis ama ka badan ay u yimaadaanna in aysan furin albaabka maxaa yeelay ninkaasi waa nin sidii booliska u libisan marka inaysan ku degdegin inay albaabka ka furaan ninkaasina waa qatar waa hubeysan yahay waa inaysan aadin haddii ay arkaan oo isla markiiba booliska ay soo wacaan marka boolisku waxay xaqiijiyeen in ninkan wax kasta oo boolisku uu watay sidaas darteed ay ugu suura gashay mas'uuliyiintan in albaabka ay ka furaan maxaa yeelay qof boolisa oo albaabka ku taagan xilli waliba 8 saac habeenimo ama 9 saac habeenimo waxa leedahay ma waxba dhacaysay wax u jiraan markaasi waa inaad albaabka ka furtaa marka sidaas inay albaabka uga fureen ayaa loo maleynaya la sida aragtaan guryahooduna ma aysan kala fogeen Chaplin iyo sidoo kalena Brooklyn wadada 16 ayaa kala qaybisa boolisku waxay yiraahdeen 5 ilaa iyo 6 mayl ay isku jireen sidoo kale maanta waxaan ognahay guud ahaan wadanka waxa ka dhacaya mudaharaadyo loogu magac daray No Kings boqortooyo kama jirta Mareykanka Trump caasimada DC waxa uu maanta ku qabanayaa wax yar aan arintan dhex galiyay waa ina qusaysa maadaama gudoomiyaha gobolka uu yiri dadka waxaan ugu baaqaynaa inay taxaddar muujiyaan wax mudaharaad oo siyaasadeedna maanta aysan ka qayb galin maxaa yeelay ninkii wali lama hayo oo baaritaan ayaa lagu haya inuu isdilay xitaa lama oga ninku waa ninkan sawirkiisa la soo bandhigay waxana magaciisa lagu sheegay ninkan Vance Luther Portler oo 57 jir ah waxa la leeyahay gudoomiyaha gobolka ayaa waxa uu u magacaabay sanadkii 2019 inuu hogaamiyo horumarinta shaqada waxana waqtigiisii uu dhamaaday bishii January ee sanadkii 2023 xitaa boardka ama gudiga ayuu ku jiray 2016 marka ninku waa ninkan cadaana magaciisii ayaa la shaaciyay ilaa haddana lama soo qaban waxa laga yaabaa inuu og yahay dhibaatada uu geystay xitaa inuu isdilay oo meedkiisa la helana waa macquul laakiin hadda ciidamo kala duwan ayaa baaritaan ku haya marka mudaharaadkii aan ku soo laabtay Trump waxa uu ku qabanayaa Washington DC soo bax weyn oo 750 ciidamo taangiyo gawaari hubeysan ay ka soo qayb galayaan marka waxa uu yiri waxaan ku xuseynaa sanad guureedii 250aad ee asaaska ciidamada Mareykanka ka soo wareegatay dhalashadiisa 78 jir ayuu maanta noqdayna waa ay ku beegan tahay marka shacabka Mareykanka waxay leeyihiin lacag 45 milyan oo dollar ayaa ku baxaysa marka waligeed Mareykanka horey uga ma dhicin parade in la sameeyo soo bax weyn ciidamo ay wadooyinka marayaan taangiyo marayaan diyaarado ay duulayaan waxay leeyihiin Trump wuxuu dhahay lacag fara badan oo dawladdu ay meelo kala duwan si macna daraa ugu qarash gareynaysa ayaan badbaadinaya laakiin hadda isaga ayaa lacagtii qasaarinaya maadaama 45 milyan oo dollar ay arintan ku baxaysay marka mudaharaadadan guud ahaan wadanka ka dhacaya waxa loogu magac daray No Kings meelo kala duwan oo gobolada Mareykanka ay ka dhacayaan Mareykanka boqortooyo kama jirto waxay leeyihiin waxyaabahan Trump hadda uu sameeyo waxyaabaha ka dhaca Shiinaha Ruushka iyo North Korea waan ognahay soo bax weyn in madaxweynaha loo sameeyo ciidamada baaldeg halkaasi laga sameeyo marka gudoomiyaha gobolka waxa uu ku baaqayaa dadka gobolka Minnesota maanta inaysan si arrimahaasi aysan ka qayb galin maadaama ninkaasi wali baadi goob lagu hayo arintu marka waxa la leeyahay ninka gaarigiisii maadaama uu ka cararay oo xildhibaanad Melissa Horman iyo saygeeda gurigooda hortooda laga helay waxa lagu arkay waraaqo qalin maakara oo cad oo qalin maakara ayaa lagu qoray waraaqaha cad oo madow ah waxana ku qoran No Kings waraaqa fara badan ayay ahaayeen marka mudaharaadkan inuu ula jeeday ayay u badan tahay marka ninkan waxa la leeyahay arrimaha abortionka iyo waxyaabahaas miyuu ka xanaaqsan yahay in waa loo maleynaya laakiin waxa laga helay liiska waraaq ay ku qoran yihiin magacyada 70 xubnood oo dimuqraadi ah oo baarlamaanka ku jira ama siyaasiyiin ah
uu doonayay inuu dilo liiskaasi waxa ugu horeeya gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz Ilhan Umar oo xildhibaanada kaliya ee Soomaalida ah ee laga soo doorto gobolka Minnesota oo Congress-ka ku jirta ayaa kamid ah xeryaalaha guud ee gobolka Minnesota ayaa kamid ah Keith Ellison waxa sidoo kale kamid ah xildhibaano kala duwan oo Tina Smith Senator Tina Smith ayaa kamid ah oo iyaduna sanadka ku jirta baarlamaanka gobolka Congress-ka Mareykanka marka dhamaanba waxa la leeyahay 70 qofood ayaa liiskaasi ku qornayd gaarigiisa ayaa laga helay oo gaari booliska oo u ekeysiyay booliska ayaana gacanta ku haya boolisku marka waxa xaqiijiyeen inay jiraan dad ay qabteen ay su'aalo weydiiyeen laakiin ilaa ay hadda ninkaasi lama soo qabanin oo waa la raadinaya waxa laga yaabaa in isagoo istilaa la helo maadaama uu yahay inta la egtay dhibaatada uu geystay isagoo nool hadii la soo qabtana waynu arki doonaa laakiin arintu sidaas ay u dhacday reer Minnesota gaar ahaan dadka ku nool golfka meesha golfka lagu ciyaaro oo la yiraahdo Edinburgh wax ilaa ay hadda shelter in place wax la yiraahdo ayaa lagu soo rogo dadku inaysan guryahooda ka bixin daaqadahana furin albaabada furin hadii albaabka loo soo garaacana ilaa iyo boolis laba qof ama ka badan ay u yimaadaan inaysan albaabkooda furin maadaama qofkan uu yahay qof boolis iska dhigay wax kasta oo booliska ay lahaayeen oo watay marka waxyaabaha kale ee ka soo kordha waan arki doonaa madaxweyne Trump arintan waa loo sheegay waxa weeyay qalaasa siyaasadeed uma dul qaadanayno afayeenka aqalka wakiiladu waa uu cambaareeyay sidoo kalena xubnaha dimuqraadiyiinta dhamaantoodba iyo xubnaha kale ee Republicanka arintan si wada jir ah ayaa loo cambaareeyay maadaama ay tahay dil siyaasadeed oo qorsheysan sida muuqda wixii kale ee ka soo kordha hadii alla idmo waa idin la soo socodsiinaya aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sidaayo nabadgelyo